Mangali Munda waa gabar ka soo jeeda dalka Hindiya waxaana waalidiinteeda ay ku qasbeen inay guursato ay arintaas oo dhaqan ay aaminsan yihiin qoomiyadda gabadhani ay ka soo jeedo. Gabadhan oo da'deeda lagu sheegay 18 sano ayaa ku nool gobolka Jharkhand ee dhaca bariga dalka Hindiya waxayna dhawaan la aqal gashay ay iyadoo fulinaysa caado dhaqameed waalidiinteedu ay aaminsan yihiin isla markaana aan laga tagi karin. Mrs Munda ayaa warbaahinta Hindiya waxay soo bandhigtay iyadoo ku labisan dharkii arooska waxayna munaasabad aysan dad badan goobjoog u ahayn ku guursatay xayawaanka ayga. Qaar ka mid ah qoysaska ku nool gobolka Jharkhand ee dalka Hindiya ayaa aaminsan in marka hore gabadha loo guuriyo ay ka hor inta aysan nin guursan, arrintaas oo ay sheegeen in ay gabadha ka difaaci karto nasiib darrada iyo burburka qoyskeeda hadhow ku iman kara. Dadka ku nool dalka Hindiya ayaa aragtiyo kala duwan ka dhibtay iyadoo dadka qaar ay ku tilmaameen arintani mid xadgudub ku ah xuquuqda dumarka wadankaasi Hindiya ku nool. Dalka Hindiya ayaa waxaa ka jira caadooyin iyo dhaqamo la yaab leh kuwaas oo si weyn u soo jiitay indhaha dadyoga ku dhaqan dunida daafeeda. Waxaana ka mid ah caadooyinkaasi in gabadhu ay doonato ninka iyadoo bixinaysa sooriyada ama gufka ninka.